marka dadka dibadda ka imaada meesha dad badan aa fadhiya waa inay dhegaysanayaan kollabo boorka markaad soo degtiin waxaa ku soo degtiin inkuu xijaab qabtiin hadda daretana waa lii bedelaya laakiin waxaan la hadlayaa muslimiinta haddii kii gabadhii soo degto iyadoo xijaab qabin oo muslimad ah marka anaka laga mid noo marka codkaygan iyo amarkan aan hadda aan sheegayo ma quseeyo laakiin gabadhii muslimad ah oo kutubka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam raacsan waxaan ka baryayaa markay magaalada joogto oo ay socoto oo moorasha ay tagaan inay xijaabka ay xirato xijaabka ay qabto bulshada Soomaalidana soo gaabinayo Sheekh Cabdirashiid wax khatar baa yaan ku arkaani bulshadana ay ga raali ahaadaan kaas ani warka siduu u yahan u sheegaa waxba ma mari safka hore ay isku dagaalayeen inay fariistaan qisada ka dhacday jamiica mosque ay Soomaali isku dagaashay safka hore aan ku tukan iyo ana booskan iska laha يا رسول فهري مسجد الحديث لكن صفك وران كنت كري قناعسي هذانا الربان خاضني اسمه كنيس صفك وران كنت كري قرآن كان أخريني حاسك هذا قبلها نشر ويقاويه اسمه كنيس صفك وران كنت كري ilmaha hada iyo gurigaadana quraanka maad barin isma keenayso xalaal la bulshada aan kiimaadaan bulshadan ee ka soo wasiir aan Kenya aan ahay fursad ma kala bulshada la soomo bulsho fiican oo 85 iyo 95 tiirka diinta ee waay marka xalfadan iyo intana culimo oo dibadda ka imaatay oo na sharaftay oo na karaameeyeen oo noo imaadeen waxay u imaadeen inay meeshan tahay meel wanaagsan meel kutubka ilaahay lagu xuso lagu karaameeyo haddana ma fiicin inay wax kala maqnaan afartan farooda sinaymo carruurtaada ku isku mid ahayn. Introducing the Offspring School, a learning center where Islamic studies and Cambridge curriculum meets. Why choose the Offspring School? Because it has competent and qualified teaching staff, conducive learning environments, affordable fees, meals enriched with balanced diet, training on discipline and high moral standards, spacious learning space and library facilities, Tahfidul Quran, memorization of the Quran. Enroll your child today at the Offspring School located at Kirichwa Gardens Road, Kilimani Estate,